عرضت بمارك عربت هذا وحير كوتسو كيف يقول عرب مركز صار إيه وقبيلة دودي بالغيال بحرين كويت عمان قطر إمارات قطر تولي بقطر تلقى لما هو حليل أبو قدر بقى قلوب كوفيد بمدح لوجلي رجال بيت بانيالية قلوب بقر 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 ولا كلا جوجينيا الصومالي نساس الغوضة ساس الدنيا مركب وحلينا يدل كيجو هرايب وصعدي محلنا مدحويني وحلينا قلب لبعة قلب برلمان وحلينا قلوب السيرو وحلينا هيدل مدح بنا واللي إحنا كل اعتراف مركب إن ما أنت إمارات كلها دل كان كوميل جاد ورسكعلي إسرائيل يو تذكر شلكيين السي إمارات بابيني أذيك ميتران مسؤولين جارهون هاي نكمدن هذا ودنيا قبيضة دلك لو هون مرينيو المركزي صديق شكت قبيضة بروحي السيدة ما حد كحسوسها أو قبيضة سومالي كلا ها قبي واحد شراء حلقة فرمات الله دورتي أي رضا أفشنا ترسي قبل حلقة كي أنا ألف كجرتي أو أبوانا ده مركا واحد تيجي ما أنت نتيح بان وضع ودرين شعبه حالي بعد دكتان هردada galay waxila duuleene dahariya waxay dhigeen goday dacaladeedii diri dhamaan socdaal ku tagay sidii sheekh Tigreeyay dadku ii soo wada dhaweeyeen daanta Jabuuti baan u baxay duhur dharaareed daanta saylac iyo awdal yaan deexu sii laday dalsankii Hargeysa Burcaan ku maray dawaafkii dalsankii Taleexiyo qalbigu dhahar ku daansheedii darmadan dhuusamar reefidsaday loo dangiigsaday socdaalkan ku maray durdurka baladweyniga diisha buula barda sii habacsaday dadka xamariya ku nool afkooya ii durbaantume doorashada farmaajiya nasriga la isla soo doonta abwaan sungub gabayadiisi hal ilaa ma ka xasuustaa abwaan sungub wallahi abwaan waxa weey taariikh oo waliba dhaqanka Soomaalida ku dagaalamay oo qadiyada Soomaaliyeed ku dagaalamay oo aan inaba caadi ahayn marka abwaan sungub waxaan ka hayaa markii riwaayad qabiyato iyo qabyatiri la yiraahdo ku qaaday Mareykanka waa kii oran oo xataa looga soo sharcigiisina lagu gubay uu ka hadlayo Soomaalidu gabdhuhu markay xagga tagaan adoo macnaheedu gabdhaha ay saabsan tahay marka gabdhuhu markay dabada tagaan xoogaa dhaqankii ka tagaan oo midabkii bay bedelaan oo ma garanaysa ninkana dhaqanku ku dagaalam jiray midnimada Soomaaliyeed marka waa ka oranaya ileen waan madowne ma heeganka Yurubiyo ma Mareykan baan nahay marka Mareykanka uu soo madnoocayo Djibouti baa loo soo tarxay Allahu naxariisto maanta waa marxuum marka tixyaru jiriyaba waxay dhahaysaa macnaheedu gabadhiisu arkaya aabo labiso xijaab xiro is astur aabo maxaa Mareykan baa la muwaafiri aabo abin weeye aabo lama joogo Soomaaliya Afrikada xumayda mid madoobeed la oranaya marka gabdhihu yaqaanay xisku xilli ay lood ahaayeen oo Mareykan iyo meelaha jooga iyo booqanaya walaal maxaa ku dhacay mid ismay walaal miyada weyn wadanka horumar buu gaaray Mareykan baan joognaa US baa la dhahdaa waxa doontaa samaynaysa marka wuxuu yiri sankii gabdhihii oo xataa sanka bira gashaday gabdhihii oo sanka bira gashaday dhaqankii ka tagay oo ragga markay suuqa joogaan fagaaraha xabadka saareen shareecan fiicnayn oo Soomaaliya buu la yaabay marka wuxuu yiri waa tiislaantiisa oranaysa dal waxay tiri dal baa xamar ee baxay Hargeysa naqba ka daay dib baa loo noqonayaa oranaysa magta marka boorsada dabada ugu tuuraysa isagii wuxuu yiri marka sanko bire la geliyo soonayaal la xiira sakaar koolaysa saara wax badan baan samraayay Soomaaliya dhamaanta saaxiibnimo ma qabisba arigiisu sumi jiray wankii sabarka weynaa saldhigii dhaqaalaha sidoo nabarku ugu dhacay sahal ma ahay waa halis saas tixdaas marinaya waayahay waxaad ii sheegtay taariikhda sayidka in badan inaad ka haydo taariikh aad qorto miyay ahayd mise waa akhrisayd maaragtay ku gaarto xoogaa xasuus badan aad ka haysaa mid iyo laba aydan noogu sheegi kartaa sayidka waxaan ka hayaa markuu la dagaalamay halgankii Soomaaliyeed wuxuu ka soo degay meel la yiraahdo Bulxaar oo ku taala Berbera xeebta Berbera xagan ka xigta marka markuu dekada ka soo degay Ingiriisku wuxuu haystay xeebahan Somaliland oo dhan iyo wadamada gobolada waqooyi oo dhan
marka wuxuu sameeyey markuu soo degay wuxuu yimi meel buuralaydu saaw eegay wuxuu iska dhigay nin waalan marka meelaha ingiriisku saldhigyada ay degan yihiin ayuu intuu yimaaduu carruurta marka la soo daayo yuu ka bahal yaroo carruurtu dhaqato kariir la yidhaha kariir yuu la dhaqan jiray waana nin weyn ninkan carab wax ku soo bartay nin wax jaahil iska dhigayaa oo kariirtaas iska la dhaqanayaa surwaal bahal dabada daldaloosho iska soo xidho ninkan gaalada ingiriiska saas oo eegeen ninkan waa nin majnuun ay naga daayay bale kadib waa kii tagay Soomaalida oo dhan buu hoos kala taay macni horta dhalinyarada weydiyo waxa uu ku yiri magaca color magac wada gaalbo magacyada iska daayay magac dambe diida magacyadaas subaxii dambe iskuulka dhalinyarada markii loo yeeray magacayga wala kristamay rabay kristaan laga dhigo way wada diideen nin walba bartii kaga baxay marka sayidkii wuxuu yimi meel la taleex niman dhul bahanta la yiraahdo deegaanka taleex iska dega buu yaa soo dhaweeyay ciidamada hadda magaca daraawiish la yiraahdo maqashaan maana niman bartaas ku baxay taleex uu degay saldhig buu ka futay daraawiish buu sameeyay marka daraawiishtii ayaa ilaalin jirtay marka gabay Soomaalida oo dhan oo qolo walba wax ka sheegay baa jirta sayidkiina nin abwaana buu ahaa marka qabiil walba wax buu ka soo qaaday abgaal buu qaaday oo qabiil adigu Soomaaliya oo dhan oo ayuu wax ka soo qaaday marka mar waxaa jirin ina jaamacabi la yiraahdo u gabi jiro wuxuu nin buu u diray ninka iyadu aamintaa bisii Soomaalida oo dhan buu marka ayuu iska daaya nin hawiyaa buu diray marka ninka hawiyu gabay u sii dhibay adduunka bariga taarna ma jirin telefoon ma jirin isgaarsiin ma jirin war waayay ha wuxuu yiri maandhow hawiye maanan diran maanta ka hortoowe guyaha eelansanaa iyo bustiha bacsanaa qaado halka ay ku haasaawayaan hore u sii joogso hadday haybta kugu badsaan habar jeclow sheego macnaheedu qolamaad hadday dhaan nimankan isaaq habar jecladu yaadka hoos uga degaan habar jeclow sheego marka saas oo ahaa markii dambana waa waqti markuu soo noqday ninkii yimina ninka soo eegay wuxuu yiri ninku dalbul ahaa oo kan ahaa marka gabay iyadana wuu ka jawaabay marka waxaa jirto kale gabay oo Soomaalida oo dhan wax ka sheegayo oo qolo walba uu wax ka sheegayo marka qolo uu dabeecadooda uu kula dul dhaco qolo uu caayo qolo uu amaano qolo walba marka taariikhdii sayidka waxaan dhihi karaa wax laga bedeli kara maaha waa taariikh saxan inkaas halgan buu jiray gobonnimaduna uu ku taagnaa marka wadiga arkay taalooyinkiisa xamar ay ku yaalaan nin sahlan ma waayahay gobolada Soomaaliya way badan yihiin haddana waxa sheegtay inaad ku dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya goboladii noloshaadii kulay meelo badan ku soo qaatay uu sheegtay ma jiraan meelo Soomaalidu aad u xiiseyso oo hadda tagtay ama mar hore baad tagtay ma jiraan wallahi gobol Soomaaliya oo aan tagin Addis Ababa waan tagay waxa weeye meel aanan Itoobiyadan iyo Soomaaliyadan aan marin ma jirto laakiin Djibouti ma tagin meesha Djibouti leedahay hadii wax laga weydiiyo nin baa waxa li hadda ka hor markuu indhabeelayay markuu indhaha intaan isku sii qabanay wuxuu arkay bakayle waxa la yiri marka markuu daas ku soo alla gaarigaas weyna waa candhameyle arbakaylaha ma leeyahay marka waxa weeye Djibouti kaylaha ma leegtahay aniga iga tahay weligeena ma tii waan maqlaa oo macnaheedu xogaa siyaasadeedana waa la soo socdaa laakiin Djibouti shaahil baan ka ahay waxaan maxaa xiiseeyaa anu siyaasadan aad u xiiseeyaa aad waliba waxaan u xiiseeyaa siyaasadda oo aad u boosta gareeya oo Soomaalida professor waxay ku leedahay halgamaa waxay ku leedahay taariikhyahan waxay ku leedahay cid walba waxa u gudo waan ogahay maanta marka siyaasadan waliba aad u magaranaysa adigii inta joogtay kulli wax sheegtay inaad carab badan martay wixii kugu leeyahay ka wadnaa qowdano maxay ahaayeen ugu dambeyntii barnaamijka